waxaa idinka jooga 500 oo wiil halka kan laascaanood oo dagaalamaya oo aan Soomaali kale idinku iimaanay maalin kasta 500 oo wiil oo daarood oo absamaha ay ku dhintaan waxaan la hadlayaa ummadda heerisiisa saaka waxaa dhageysateen shalayto xabad joojin ay xalay ku dhawaaqeen systemkan waqooyi jooga ويا حبت حبت واحد في سبلا شروطه waxaan idin sheegayaa hadalkaasi inuu been yahay oo uusan idin qusayn oo idinka leedin sheegay ee loo sheegay hay'adihii caalamiga ah ee lacagta laga qaadan jiray rasaasta la inoo siistay ee la idin qaaday shantii subaxnimo ayaa magaalada waxa lagu soo bilaabay sida caadada ah madaafiicdii lagu garaaci jiray waxa lagu soo qaaday weerar ku adkaa waxaa dhimashada iyo dhaawac maraya hadda tirabeel waxaana socda xabadii ugu xumayd alaasay shantii subaxnimo iyadoo masaajidada lagu jiraan la soo bilaabay waxaan rabaa qodobkaas inay idinku kalsoomin ummadda Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliya ugu horeyso iyo dawladaha deriska iyo beesha caalamka iyo islaamka waxaan u sheegnaa arrintaas inay tahay been cad ficilkii iyo jawaabtii ay wadeen maamulka gobolada Hargeysana ay saakatii ugu xumayd ee xabadda ahayd ee duqeynta ahayd ay socoto taa intaasaan kale hadalka idinka leedin ma wadin hay'adihii lacagta la idinku laayay ee rasaasta lagu gurto laga qaadan jiray baa loo sheegay hay'aduhuna waxna way fahansan yihiin anaguna wax kale aan u sheegi doono taa intaasaan leeyahay waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo dawladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo islaamka iyo beesha caalamka laascaanood waxaa ku socota xabad fulaynimo oo arxan darro oo duqeyna oo habeen iyo maalin oo sida kiniinka loogu waray waxaan rabaa dawladda Soomaaliyeed dadka ay u horeyso qofka Hargeysa ka soo duulay iyo Burco iyo Boorame iyo meesha la yiraahdo Gidida ee maatada ee masaajidkii garaacaya ee cusbitaalkii garaacaya ee hoteelkii hurdada iyo cuntada garaacaya ee dhaawicii meydkiisii iyo meydkii ku garaacaya cusbitaalka gudihiisa iyo qofka dhibaraha ee gurigiisa jooga inay dhexdhexaad u noqon in hadalkiinu cadaado in warkiinu cadaado in waxa ay sheegayaan madaxweyne waxa sheegaysan la fahmi karo inaad oran kartaan cadayn kartaan qaladka meesha ka jira ساسان ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed noo sheegaya waxaan u mahadnaqayaa mar labaad dawladda Soomaaliyeed oo taageertay si buuxda u taageertay go'aankii aanu soo saaray iyo hogaankii aanu sameynay waxaan u mahadcelinayaa dawladda Puntland maamulka Puntland oo isna taageeray iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa inaan u sheego beelaha Soomaaliyeed samaroon waxaan rabaa inaan u sheego waxaa idinka jooga 500 oo wiil halka kan laascaanood oo dagaalamaya annagoo taa ka aamusan baad waxaad ku deeqasaan geel iyo ari aad u qalasaan ciidamada masaajidada iyo caruurahayagii iyo dadkayagii duqeynaya waynu ka xisaabtami doonaa ciise waxaan u sheegayaa ama Itoobiya jooga ama Djibouti jooga ama Ismaaciil Cumar Geela ama mid kale ahaado waxa aad ku jirtaan ilaa iga rabtaan inaad garba ugu sameysaan dulmiga وآد isku raacsan tihiin ka caban mayno idinku ha cabanina marka xoogaa cafari ay wadadii yareeyay Djibouti ay jirtay ay bariidu ku soo weerarto oo aan Soomaali kale idinku iimaanay maalin kasta 500 oo wiil oo daarood oo absamaha ay ku dhintaan bariito idinku Soomaalinimo ka hadlayo oo Soomaali ku muusanaabaya yaanaan idin arag waxaan u mahadcelinayaa golihii deegaanka ee maalintii dhaweyto hadlay ee maayarkii iyo ku xigeenkii ee hadafkooda cadeeyay ee sheegay dhibta meesha ka jirta ee waajibaadkooda iyaguna ku qaatay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo saraakiisha iyo ciidanka difaaca sharaftooda iyo dalkooda ku jira ee maalintii lixaad weerarka ku socdo ee difaaca magaalada waxaan leeyahay ilmaade rayaal waanu idin garab taaganahay waadna guuleysanaysaan maruuriyooday wuxuu yiri rasuulkaana dhinac jooga iyo dhowr kun oo malago dhalay ilaahay marun bay ka fool dhaqan adkaysta waadna guuleysanaysaan